السلام عليكم ولا ليال مركو هراء ومهسنتين مارتي حلفدة ما أنت عن مارتي رئيس الوزراء أن كسوة دويني رئيس الوزراء طبعا سنة كهر بلشدي سود ويسق قيبة كمية ويفديان أو بدن قيبنا وينجا مقنطعي صاحبك عبد الفتاح جنة قال سفر وجراء جارسي وده رئيس الوزراء صاحبك سواي نيكي مارتي عسومة هذا ضدك فيديو كجراء جالية صوماليات نهوشان وإسلام وذا قبتي وتوكده هورنا ضدك وسود دويجرنا رئيس الوزراء وسود دويني حدنا سيدي أوضا ودنا وقت جينا وصورنا شقدينا وصوتنا إسكاشيان يهوشان أو ودنا ومارتي رئيس الوزراء وهولا وجعلي هاي مارتي ضدك فيلان جوجو ضد ديار وإه إني لا شقيان دولة Soomaaliya Soomaalinimada dad ay ka go'an tahay waxaan maartay hawshan iska leh dadka waalidiinta oo 90 ka yimid oo howlaan ka shaqeeyeen maanta in lagu amaano in wadamadii kale aan ka horeeyno oo Soomaalinimadii wali ku dhaganahay iyo maartay aan ilaalinayno protocolka iyo wax walba maartay waxa waaye waxaan noo shaqeeyay waalidiintii iyo dadkii halkan nooga soo horeeyay annagana waa sii wadi doonaa aniga haddii aan iskiin baro research horta marka hore waxaan ku leeyahay soo dhaw ku soo dhaw Finland maartay mar labaad maartay hadalkan hadda inaan ku sii dheeraado ma rabo waxaan maartay waagi ay iimaanaysay dadkii waxaan ahay kula socday maalin walba waqti dheer ah waagaas la joogta hadda waqti dheer ah joogta waagaas siyaasi ma ahayn hadda siyaasi aan noqday maartay wax badan waa ka bartay waagaas haddana waxaan rajaynayaa in wax ka barano waana jecelnahay transformka aad jeceshahay isbedelada maartay waxaan israaxay 2021 waxaan helay cod ku dhow 400 cod haddana waxaan rajaynayaa maartay 2023 bisha afraad in la ii doorto dadkan ay u jeedane waa inaan qanciyaa oo wax qabadkayga u sheegaa oo waxaan qaban doono aan u sheegaa markii aan cod ka rabo Soomaaliyana waxaan rabno waxa waa in inta ku practice gareyno oon Soomaaliyana intana wax ka bedelno Soomaaliyana aan geyno isbedelkaas maxaa yeelay Soomaaliya isbedelku wuxuu ku imaan karaa dadka hoggaanka u ah inay wax ka bedelaan wadankan aan joogno dadka hoggaanka u ahay ayaa wax soo bedelay maartay adduunkana dawladdu ku shaqeeya marka waxaan rajaynayaa dadkii wax bedelay inaan naqa doonto ra'iisul wasaare maartay waana jecelnahay isbedelada aad jeceshahay maartay waana soo gabagabeynaa wax yar halkan uga faa'iideysanaa reer Hirshabeelle xalfadda waxaan dhigaynaa 5 bisha 10aad oo maartay soo socoto habeenkii 12 saac ay bilaabanay waxayna dhamaanay labada habeenimo maamul goboleedyadana ra'iisul wasaaraha wuxuu dhahay maamul goboleedyada sharci ma ahan laakiin waxa ka rabaa ra'iisul wasaaraha wax yar inuu weydiiyo cawada maamul goboleedyada wadankan Finland waxay sii jireen maartay dhaqaale ku bixi jireen Soomaaliya hadda waxay ku bees gareeyeen maamul goboleed kasto inuu maartay markaan hadda lacag ka dalbayno wadankan ururaan ku dalabna oo number of aid maxaa yeelay qofka maartay markuu rabo inuu wadankiisa wax geeyo laga yeelay aniga lacag la dhiibay ana geynayo maxaa yeelay waxa la rabaa inaad maartay jaaliyadiin maartay aadan waxaan adiga ka faa'iideen waa lagu xisaabtamaa euro kasta meesha ku baxday dadkii inay gaartay marka maamul goboleedkaaga waa inaa wixii geysaa maartay maamul goboleedyada waa inay geysaa iyaga ku bees gareeyeen waxay ugu bees gareeyeen Soomaalida halkan joogta ay yireen Soomaalida waa federaal marka waxaan rabnaa hadda xataa waxay ku xireen mashruucyadii waxay ku xireen dadkan soo galgalay qulqulka oo xuduudan oo ruushka isfurtay ay dhibaato ka taagan mana aha Soomaali kaliya dadka soo galay waa ajaanib oo dhan xataa wadamo dawladda leh soo galay marka waxay dhaheen in dadkan la celiyo wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya iyo wixii ku xireen wadamadan AU-da ee sharci ah in dadkan soo qulqulay laga celiyo marka waxaan ka rabnaa ra'iisul wasaare dhalinyarada in shaqo loo abuuro annaga maartay intaas volunteer ku shaqeeyna xalfadaan volunteer ku qabeynayna waxaan dhan volunteer ku qabeynayna danaheena ka soo tagnay dawladda Soomaaliya waxa laga rabaa inay ayagana dadka volunteer ka dhiirigeliyaan dhalinyaradana loo qodo shidaaladooda iyo waxooda iyo macdantooda oo maartay laga saaro inaan annaga dhul qaboow aan maartay aan u soo habaawno oo nala dhaho qaxootiyatiin cunsuriyadana waxa sii badinay waa sidaas waana ka baxay waana mid salaama